بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن wanaagsan dhageystayaal dunida meel walba oo aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo kamida barnaamijyada ka baxa channelka Aftahan Video Production markale kula wanaagsan dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobada xilligan barnaamijka dabagalka wararka aad ku maqli doontaan saaxiibayaal waxa kamid Umar Cabdirashiid oo dib u abaabulay xogagii mucaaradka ka soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Farmaajo iyo qorshe la filayo inay ka bilaabaan magaalada Muqdisho ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka maanta isku risaasay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir khasaaraha ka dhashay israasayntaasi ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa hadduu alla idmo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa la amray inuu sandalka ka bixi karin ilaa uu soo dhamaado baaritaan dhinaca hantida qaranka bal hadduu lunsaday iyo haddii kaleba oo imika ku soconaya Taabid Cabdi Maxamed qodobada ayaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu alla idmo magacaygu waa Cabdilaahi Balwan waan kaaga mahadcelinayaa dhageysiga barnaamijka dabagalka wararka waana mar kale iyo barnaamijkii dabagalka wararka Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke ayaa dib u bilaabay inuu abaabulo xogagii mucaaradka ee ka soo horjeeday siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxayna qorshe cusub oo mucaaradnimo ah ay dib uga bilaabi doonaan magaalada Muqdisho barnaamijka dabagalka ayaanu ku eegi doonaa balse marka hore ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta isku risaasay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir wararka naga soo gaaraya degmada Kaaraan ee waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in dhow ay israasaaseen ee ku dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya israasaasintan oo sababtay khasaare ayaa waxa la sheegay inay ka dhacday suuqa lagu iibiyo qaadka oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ay ka tirsanaayeen militariga Soomaaliya hase ahaatee waxa ay sheegeen in dhowr daqiiqadood oo israasaasintu ay socotay kadib ay joogsatay xabadii labada dhinac ay isweydaarsadeen goobjoogayaal ayaa dhinaca kale waxa ay soo wariyeen in dad shacab oo ka agdhawaa goobta ay waxyeello ay soo gaartay hase yeeshee maanay faahfaahin inay soo gaartay dhimasho ama dhaawac laakiin waxa ay xaqiijiyeen inay arkayeen dhowr qof oo xabade ay ku dhacday oo dhulka yaala wixii ku soo kordha wararkaasna waxaad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijyada soo aadan wali waxaad degeysanaysaan barnaamijkii dabagalka wararka oo kamida barnaamijyada ka baxa channelka Aftahan Video Production markana gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa la amray inuu dalka ka bixi karin ilaa uu dhamaado baaritaan lagu sameynayo warar hoose aynu helnay ayaa xaqiijinaya in xafiiska hantida dhowraha guud ee qaranka uu gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed uu ku amray inuusan amar la'aan dalka ka bixi karin isla markaana si degdeg ah u xilka ku wareejiyo wararka ayaa intaa ku daraya in hanti dhowraha guud ee qaranka uu shaki ka qabo intuu Taabid gudoomiyenimada haystay inuu lunsaday hanti fara badan oo qaranka uu lahaa sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in hanti dhowraha guud ee qaranka mudane Maxamed Maxamuud Cali Afgooy oo amar ku bixiyay in uu si degdeg ah ku soo wareejiyo akoontiga maaliyadda gobolka Banaadir iyo dhaqaalaha ku jira wararka qaar ayaa sheegaya in arrintan iyo amarkan dib loo baaro dhaqaalaha ku jira akoonka gobolka Banaadir uu soo amray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre baaritaanka Xasan Cali Khayre ku amray hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa muujinaya in Taabid looga shakisan yahay waqtigii uu hayay gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu lunsaday hanti fara badan balse wixii ku soo kordha baaritaanka lagu hayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo siyaasiga mucaaradka Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke oo dhawaan la xaqiijiyay inuu bilaabay barnaamij dib loogu abaabulayo xogagii mucaaradka dawladda Soomaaliya oo dhabarjab xooggan uu soo wajahay ayaa dib si rasmi ah u bilaabay maanta inuu dib isugu soo aadiyo dhammaan mucaaradkii diidanaa dawladda Soomaaliya kadibna uu ballan ku qaaday in magaalada Muqdisho qorshe siyaasadeed mucaaradnimo ay dib uga bilaaban doonto Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke ayaa shaaca ka qaaday in ay jiri doonaan maalmaha nagu soo aadan kulamo ay qaadanayaan qaar kamida mucaaradka dawladda Soomaaliya isla markaana ka kala dhici doona magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo waliba Garowe
xogaga mucaaradka uu abaabulayo ayaa waxay isugu jiraan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin hore iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedyada iyagu gadaal ka riixi doona mucaaradka laga soo horjeedo dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. kulanka uu sheegay Cumar Cabdirashiid inuu ka dhacayo magaalooyinka qayb ka mid ah uu madaxweynuhu cagta soo mariyay sida Garowe oo magaalada si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dadka reer Puntland ay madaxweynaha u sheegeen in mucaaradnimo dambe ayna dhici doonin ayaa tani waxay muujinaysaa in balantii looga baxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dib boor uga jafida mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in hanti fara badan ay ku bixinayso dawladda Imaaraadka Carabta, isla markaana laga doonayo qof kasta oo ka mid ah mucaaradka diidan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu ka shanqariyo mooshinno xawaarahooda uu aad u sarreeyo, isla markaana lagu qaadayo madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. si kastoo noqotaba abaabulka imika ayaa waxa uu noqonayaa abaabulkii labaad oo magaalada Muqdisho dib boorka looga jafo, inkastoo Cumar Cabdirashiid uusan soo gaarin caasimadaasi yeeshee warar lagu kalsoon yahay uu helay Channel Kaftan Video Production ayaa xaqiijinaya in kulamo goosgoos ah oo inta badan aad loo qarqarinayo uu ka socdo hoteelo ku yaala magaalada Muqdisho, inkastoo ay mucaaradkani aad uga faa'iideysanayaan isbeddelka dhanka maamulka ee gobolka Banaadir soo wajahay, taasoo u fududayn karta mucaaradka inay helaan taageero fara badan oo ah dad ka carooday xilka qaadista gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. waxaa macquul ah qaar ka mid ah qabaa'ilada degan koonfurta Soomaaliya laakiin kuwa sida gaarka ah u sheegta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inay caawin karaan xogaga mucaaradka maadaama ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay u tafaxayteen marnaba inaynan u maqaam yeelan shacabka looma ooyaan ka noqday ee ku nool magaalada Muqdisho, kuwaasoo codkoodu uu yahay mid la dadaboolayo isla markaana aan loo quurin inay noqdaan sida shacabka kale ee Soomaaliyeed ee ku nool gobolada kale. waxaa suurtagal mucaaradka inay helaan garab dhammaystiran oo ku aadan odayaal dhaqameedyada iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Banaadir oo laga yaabo inay ku taageeraan xogaga mucaaradka barnaamijyada looga soo horjeedo hab siyaasadeed ahaan u soconaya dawladda uu hogaamiyo Farmaajo, isla markaana ay macquul tahay in haddii mooshinno ay bilaabaan ay garab weyn ka heli karaan baarlamaanka qaarkood oo aad uga carooday sida dawladda Soomaaliya isku yeelinayso, isla markaana ay u muujinayso awood ka duwan midda inta badan lagu arki jiray dawladihii ka horreeyay. dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada ayaa waxa ku sugan rag siyaasiyiin iyo waliba qaar ku cusub siyaasadda laakiin haysta awood dhammaystiran, waxayna inta badan weeraro ku amraan in lagu qaado magaalada Muqdisho hadba siyaasigii aan dawladda u hoggaansamaynin. wixii ku soo kordha dib boor uga jafida oo Cumar Cabdirashiid wado, isla markaana uu doonayo inuu abaabulo mar kale xogag mucaarad oo ka soo horjeesta dawladda Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo. intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dabagalka wararka oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen. intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonana waa baxdii barnaamijka oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.